ururka la yiraahdo nabadoon ayaa waxa uu maanta ku qabtay magaalada Nairobi seminar iyo dood cilmiyeed uu kaga hadlayay ama ay iskugu yimaadeen ilaa 60 dhalinyaro Soomaaliyeed ah waxaana uu guddoonsiiyay dhalinyaradii ka qayb gashay kulankaasi iyo doodahaasi shahaadooyin caalami ah Faisal Casayr Maxamed oo arrimaha dhalinyarada u qaabilsan telefishinka Somali Channel ayaa warkan u faahfaahsan haya ururka nabadoon ayaa magaalada Nairobi ku qabtay xaflad uu shahaado ku guddoonsiinayay dhalinyarada Soomaaliyeed oo gaaraya 60 dhalinyaro kuwaas oo qaarkood loo soo gabagabeeyay seminar 3 bilood u socday iyo kuwa kale oo ayagana ka qayb galayay dood cilmiyeed ay iska kaashadeen ururka nabadoon iyo TV-ga Somali Channel xafiiskiisa magaalada Nairobi munaasabada ayaa waxa daafuray dhalinyarada dhameysatay seminarka iyo kuwii ka qayb galay dood cilmiyeedka soconayay 3 bilood waxayna ka warbixiyeen wixii ay ka faa'iideen intii ay socdeen seminarka iyo dood cilmiyeedka soo galay tababaro fara badan baan la siiyay seminar baan qaadanay seminarka markaan qaadanay tababar baa ka dambeeyay tababarkii markaan qaadanay waxa ka dambeeyay dood cilmiyeed waxyaabihii markaan ka faa'iiday social networks ayaa ugu muhiimsanaa sidoo kale waxa ugu muhiimsanaa oo xubinta ugu xiisaha badneed ahayd isdhexgalka bulshada oo runtii ah mawduuca ugu xasaasisanay intii tababarku u socday maadaama barnaamijkan aan 3 bilood soo waday waxyaabo badan aan ka kororsaday farxadayda hataa caaw inay ii suuro geliso hataa inay heeso ama aan gabiyo ama aan baraabaro inta bariya eebe saad uga baxdaan qarax iyo baaruuda beerahana tabcada dunidu wayna baryaysaaye ubadkana waxbara biri baa loo baxsanayaaye calankana bobiya cadowgu waynaga baqayaaye nabadoonno ku soo biira waa lagu badbaadaay qaar ka mid ah fanaaniinta reer Nairobi oo ayagana ka soo qayb galay munaasabada ayaa ayagana goobta ku soo bandhigay fan iyo majaajilo aad ula dhaceen dadkii ka soo qayb galay xafladda lagu guddoonsiinayay shahaadooyinka dhalinyaradii dhameysatay seminarka iyo kuwa ka qayb galay dood cilmiyeedka soconayay 3 bilood horta waxaan la hadlayaa wiilasha inta fadhiyaan oo dhan macnaha gabdhaha aad iyo aad horta rag u jecel yihiin kooda ragana sidoo kale fiirahaday darta fi darta wada ama fi qaldan Allah qof ismu la saaqila arko rag waa ogtahay saasamaha wiilashan macnaha intay aadaan isha gym la aad la mara gym soo qaad fanaan diiranka combine laga soo gadanaa sheekada markay halkaas tagto maaragtay shaqadiga markii dambe Allah ugu dambeyntii ayaa gudoomiyaha ururka nabadoon Masar Cabdiraxmaan waxa uu goobta shahaadooyin caalami ah ku guddoonsiiyay dhalinyaradii ka qayb galay dood cilmiyeedkii soconayay 3 bilood iyo kuwii qaatay seminarka Ahmed Bashir Mohamed safar ayuu laga jiraa waxa uu ayaa Hani Mohamed Haashi Hani Mohamed Haashi waxaynu xigi doontaa Salma Abdinuur Ahmed أوانكو أنا جم قيها وحن وهنا شعر شرف أوانكي نقلت القاتل برنامج كنتو سعودي مصدر شعيب عبد النور معلم أحمد لكن وأنا جم قيها نصيب رحمه سارة عبد أحمد مهد محمد حسين نجماع عبد الرزاق محمد ururka nabadoon waxa la aasaasay 2010kii waxaana aasaasay oo maskaxdooda ka soo maaxatay dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ka dhiidiyay dhibaatada ay ku jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka samata bixiyaan waxa uu hadafkoodu yahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen jaariga haleeyay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed Faisal Casayr Somali Channel Nairobi